Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dawda soo dhawaada channelka Sooyaalka Media. Qodobadeena waaweyn maanta waxa ay kala yihiin madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo isku sandhayn ku sameeyay golihiisa wasiirada kadib janaale ciidamada xoog oo qark u saaran qabsashada laba degmo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ku maqli doontaan. madaxweynaha maamulka Puntland oo aqbalay inuu Muqdisho imaado. dhankaasi wararka caalamkana waxaa kamid ah muslimiinta Indonesia oo isku khilaafay salaadii Jimcaha. daawadayaal intaasna waxaan qodobadeena wararkeena ugu door karoon. magacaygu waa Maslax Nasiib. fadlan haddaan u cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad noola wadaagto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan. haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu xilka ka qaaday 5 kamid ah golihiisa wasiirada isagoo magacaabay xubno wasiiro cusub oo ku soo biiray golihiisa wasiirada. wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa waxaa xilkii loo qaaday wasiirada kala ah qorsheynta, waxbarashada, dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sidoo kale magacaabay wasiiro cusub oo bedelay kuwa xilka laga qaaday inkastoo aan la shaacin sababta rasmiga ah xilligan ku soo beegmatay xilka qaadista xubnaha wasiirada ah. haddana waxaa xusid mudan in dhammaan wasiirada cusub ee la magacaabay ay ka tirsan yihiin baarlamaanka maamulka Hirshabelle. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa ku dhawaanaya laba degmo oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose maalin kadib markii ay qabsadeen magaalada Janaale. war ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada Al-Shabaab ay bilaabeen inay ka baxaan degmooyinka Kutuwaaro iyo Sablaale kadib markii ciidanka xoogga dalka ee gaarkooda bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan. qorshahan ciidanka ayaa ah inay gacanta ku dhigaan labadaasi degmo. ciidanka xoogga dalka ayaa nawaaxiga degmooyinka Kutuwaaro iyo Sablaale ka bilaabay howlgallo lagu baacsanayo dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaasoo inta badan haatan faaruujiyay degmooyinkaasi sida uu sheegay Sareeye Guud Cabdi Maxamed oo ah taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan deegaanka Janaale oo dhawaan laga saaray kooxdaasi. taliyaha ayaa sheegay in maleeshiyaadka ka cararay Kutuwaaro iyo Sablaale ay gaareen gobolka Jubbada Dhexe. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lagu wadaa inuu dhawaan soo gaaro magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya kadib caasimad uu ka helay dowladda federaalka Soomaaliya. Deni ayaa ku dhawaaqay go'aanka booqashada Muqdisho kadib kulan golaha wasiirada Puntland ee maalintii shalay ka dhacay Garowe kaasoo sidoo kale looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin coronavirus. booqashada Deni ee Muqdisho ayaa imaanaysa kadib heshiis cusub oo dowladda Puntland la gashay wafdiga dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa Garowe kaas oo ka qayb galaya shirka wadatashiga Puntland. Puntland ayaa waxaa weli ku sugan wafdiga ka socda dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawaad. sidoo kale waxaa dib u sixid lagu sameeyay qodobka sheegaya in Puntland ay shir ku cansuntay saamiladii siyaasadda Soomaaliya. taasina waxaa lagu bedelay in Puntland ay shir ku cansuntay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. iyadoo muslimiin badan oo ku nool magaalada Jakarta ee caasimadda Indonesia ay aqbaleen talooyinka loo jeediyay inay ka fogaadaan ismaatin diimeed ayna guryahooda ku tukadaan Jimcaha ayaa haddana qaar badan waxay iska indhatireen halista cudurka coronavirus waxayna ku soo urureen masjidada. Indonesia ayaa waxaa laga diiwaangeliyay 309 kiis oo coronavirus. hase yeeshee tiradaasi ayaa sare u sii kacaysa waxaana khubarada ay ka digeen inay sii kordhi karto tiradaasi. hase yeeshee qaar ka mid ah muslimiinta dalkaasi ayaa sheegay inay aaminsan yihiin in imaamkooda uu badbaadin karo. warasaabka Jakarta ayaa joojiyay dhammaan ismaatin diimeed muddo 2 toddobaad ah. masjidka weyn koonfur bari Aasiya Istiqlaal ayaa la baajiyay salaadii Jimcaha. imaamka masjidka Nasruddin Umar ayaa sheegay inuu hoggaansamay amro ka soo baxay golaha culimada Indonesia oo ku baaqday in dadka ay kala fogaadaan. ismaatin diimeed oo bishii tagtay dalka Malaysia uga qayb galeen 16,000 oo qof ayaa u horseeday in 670 qof ay ka qaadaan coronavirus. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wararkeena. warkii intaa ku mudan waxaan kaga tegaa sidaas iyo amaana Allah.